hadlay oo si kasta u wacdiyay oo dhinac kasta ka tusay ayuu go'aan iska gaaray. ilaahay baa waafajiyay. go'aanku gaaray waa maxay? asnaamtan ilaahay ghayrkiis la caabudayo waa inaan burburiyaa. waana dhaartay watallaahi laakiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin. weliba wuu yidhi oo qaar baa maqlay isagoo arrimaha leh inaan asnaamtiina aan burburin doono. sidii buu yeelo waa kii ka dhabeeyey. waa kii maalin meel cidli isugu yimid oo asnaamtii la caabudayo dadkii meeshii ku farxsan yihiinoo goortii la hoyan lahaa buu yidhi wallahi anigu idinma raaci karo waan yar bukaa. allah kelimaddaa waan bukaa uu yidhi wuxuu isku qoray meel buu ku qortay inay been tahay buu meel ku qortay. taasaa been la odhan karaa? dee wuu bukaayo qalbiguu ka bukaayo laakiin beentaa uu sheegay meel buu ku qortay. oo waata markii yowmu shafaaca shafaaca alcudmaa yowma alqiyaama markii ilaahay uu carooday caro uusan weligii caroonin caroon doonin iyadoo kale nebiyadii oo dhan ay ka baqeen nin walba waxbuu sheegtay. isagu wuxuu yidhi anigu 3 goor baan been sheegayoo ilaahay hortiisa maanta ma tegi karo. mid bay ka mid tahay tan kow innii saqiim. muxuu uga jeeday inuu meesha ku haro? waa la wada hoyday keligii baa soo haray. asnaamtii oo cunto loo dhigay oo la hagaajiyey oo la qurxiyey oo la sharsharxay oo cuntadii iyo ma aragtay buskudkii iyo macmacaankii la hordhigay ayuu hor yimid. markaasuu yidhi maad wax cuntaan maxaad meeshaan afka la taagtaagaysaan? waa laydin marti qaaday dee wax cuna dee cuntada cuna ya maa lakum laa ta'kuluun maxaa wax cun leediin alaa ta'kuluun miyadan wax cunay maa lakum laa tantiquun oo maxaad la aamusantihiin maad hadashaan ma hadalku ka hormariy mogta waxba ma cunaysaan haddana ma hadlaysaan ay baa tihiin nijaas ah waxaa idinku dhacwaad arki doontaan. waa kafaas intuu qaatay kulligood wada burburiyey. faraaqa calayhim darban faraaqa ilaa aalihatihim faqaala alaa ta'kuluun maa lakum laa tantiquun faraaqa calayhim darban biاlyamiin. allah darba waxay ahayd ilaahay raalli gelisay oo ilaahay khulladiisa gaarsiisay. waاtakhada allahu ibraahiima khaliila. asnaamtii buu burburiyey kulligood. kii ugu weynaa buu ka tegey. dan buu ka leeyahay jacaylka ma ahe walciyaadu billaahi. dan buu ka leeyahay kii ugu weynaa ayuu faaskii qoorta u surayoo u ka tegey. dabadeed markay soo noqdeen qowmkii oy arkeen asnaamtii iyo aalihadii oo wada burbursan baaritaan baa la galay. mukhaabaraadkii NSST baa la diray. war sida tan yaa yeelay? war aalihadeenna yaa burburiyey? khadkii baa soo galay. waxaa la yidhi wiil yaroo ibraahim la yidhaah oo maalmahan ka hadhadli jiray baa jire ha la soo qabto. waa la soo qabtay ibraahim. arrintii taxqiiq baa la furay. ibraahimow maadaa sidan yeelay baa la yidhi. wuxuu yidhi aniga maya kan soo maad aragtaan kii ugu weynaa waaba muuqataabe adiladii daliilkii jariimada uu ku sameeyey baa faaskii baa uu suran yahay. kan weeye kan burburiyey ee kuwa kan la burburiyey bal warsada oo maxaa laydin burburiyey dhahay oo ha idinka jawaabeen. qaaluu aanta facalta hada biaalihatina ya ibraahim qaala bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum kuwaan burbursanee la jajabiyey in kaanuu yantiquun hadday hadlayaan. muxuu wadan lahaa? wuxuu wadan lahaa in fitradii saliimka ahayd ee ilaahay insaanka ku abuuray inuu dhaqaajiyo. wayna dhaqaaqday ficlan. alfitra alasliya lilinsaani waa tawxiid waa laa ilaaha ila allah. baktigan iyo qurunkan mar dambay soo galaan. tii baa dhaqaaqday oo dib bay isugu noqdeen. waa ka ilaahay leeyahay farajacuu ilaa anfusihim faqaaluu inakum antum الظaalimuun. dib bay isugu noqdeenoo wallaahi waxaanuu sheegayo ibraahim waxbaa ka jira. war dhaalimiin baa tihiin. kuwan wax iska dhicin waaye iska celin waaye haddana hadli waaye maxaa ka caabudaysaan? intaa yar baa dhaqaaqday. waana intuu u dan lahaa. laakiin shaydaan maa daynaya. shaydaan oo qoomkan u diyaariyay inuu jahannamo ku shugo markiiba isagii baa meesha soo galay. dib bay marka maradkoodii iyo cudurkoodii ugu noqdeen. uma nukisuu calaa
رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون warwaad ogtahay inayna kuwan weligoodba ay hadlinayaan hanugu wareejinayna noo jawaab markaasuu iska cadaystuu yidhi qaala afatacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacukum shayئan walaa yadurukum uffin lakum walima tacbuduuna min duuni illaahi afalaa tacqiluun qisada waa wada garanaysaa go-aan baa la gaaray waa la maxkamadeeyey waxaa la yidhi ninkan waxa uu sameeyey wiilka kan waxa uu sameeyey waa waxaan hadda ka hor la samaynin aalihadii ilaahyadii buu yuu laayey uu burburiyey soo maaha cadaab aan ciqaab aan cidna soo marin waa inaan ciqaabnaa dabkii adduunka ugu weynaa waa inaanu shidnaa dabadeedna aanu ku tuurnaa dab bay muddo dhan horinayeen waxaa la yidhi heer waxay gaadheen dabka aan loo soo dhowaan karin oo shimbir hadduu soo dulmaro isagoo samada maraya uu ku soo dhacayo kuleel waxay ka qabto oo agteeda ma iman karaane intay isagii xidhxidheen wax manjaniiq la yidhaah oo lagu gano maxaa af soomaaliya lagu odhan lahaa waad u malaynaa xaaji abwaan may leeb yaqaansan maaha waa bahal sidii moollo oo kale oo intisaal loogu xidho dee waa bahalka dhagaxa lagu gano oo kale oo laakiin loox laga dhigay oo lagu seexiyey oo saa inta loo qabto markii la sii daayay sidii dhagax ya leexo oo kale oo ganaysa bay u sameeyeenoo ay ku xidheenoo si ay meel fog ay ugu looma dhowaan karo agteeda lama soo mari karo anigu waxaan la yaabaa suuratu alambiyaa waxay ka sheekaysay ibraahim oo qisadiisan si tafatiran waxuu haddana ilaahay ka sheekeeyey nuux luut buu ka sheekeeyey haddana nuux buu ku xijiyey haddana ayuub buu ku xijiyey haddana dannuuni yuunus buu ku xijiyey haddana zakariya buu ku xijiyey mid walboo nebiyadaa ka mid ah ilaahay buu u dhawaaqay alluu baryey xaajadiisa khaaskuu weydiistay nuux ilaahay buu baryey wanuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu oo ilaahu dadkan iga qabuu yidhi waana ajiibnay waana halaagnay qowmkiisii luut sidoo kale fastajabnaa lahu ayuub sidoo kale cudurkii baa ku dhacay fastajabnaa lahu fakashafnaa dannuuni oo yuunus calayhi salaam oo libirigii kalluunkii weynaa calooshiisa lagu hubsado halkaa xabsi looga dhigay naadaa fi الظulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin fastajabnaa lahu zakariya id naadaa rabbahu fastajabnaa lahu ilaa ibraahim ma naadaa ma hadlin ilaahu iga soo qaba ma odhan ilaahu iga soo gaadh ma odhan ilaahu nimankan dabkana igu tuurayaana iga celi ma odhan bal ee malaa'igtii ayaa oyday dajat fi الsamaa ohin markaasay dhaheen ilaahayow khaliiluka oo adiga keligaa ku caabuda oo maanta la gubayo ma adkaysan karno mayow garan maayaan ilaahay wuxuu yeeli doono liannahu yafcal maa yashaa ilaah hadduu doono u golanaya inuu iska gubto oo dee jannada u geeyo marka ayaw waxay leeyihin yaa rabbi ilaahayow noo idan aanu maaragtay u gargaarnay khaliilak oo aanu ka badbaadinna gaaladan laynayse ilaahay wuxuu ku yidhi baa la yidhi ordoo u tagoo u bandhiga hadduu idinka ogolaado u gargaara hadduu idinka ogolaado u gargaara oo badbaadiya malaa'igtii baa u timid isagoo xidhxidhan ibraahim calayhi salaam oo loo diyaariyey in lagu gano dabkaa xoogga badan ilaahay uu ku tilmaamay jaxiim naarna wuu ku tilmaamay marka ay u yimaadeen ibraahim ay ku dhaheen ibraahimow inaan kuu gargaarnaan doonaynaa oo kaa celino dee waa malaa'ig ilaahay awood buu siiyey qaar baa badahaba xukuma oo baddoo dhan ba keeni karaaba meesha ku shubi karaa ama wayba dafayaanba isagoo dhan ba way la tegayaanba ama kuwan doonaya inay meesha ku tuuraan bay leeyihin waxay doonaan bay samayn karaan ila hadduu ilaahay u idmo waxay doonaan bay samaynayaan malaa'igtu wuxuu yidhi ma idinka maya idinka waxba idinkama rabo makhluuq waa makhluuq ama ha weynaado ama ha yaraado jibriil 600 garab buu leeyahy hal garab hadduu fidiyo mashriqan wa maqriban sharqi iyo garbi qoraxda meesha ka soo baxda ilaa meesha u dhacdo waa adduunyada intay ku fadhido oo dhan ayaa hal garab ku filan hal garab 599 baa u dhiman uu fidin karaa oo uu duulayaa uu daalayaa isagu mulkiga ilaahay boqortooyadana aysa dhammaanay ilaahay subxaana wa tacaala jibriil calayhi salaam oo awooddaa leh iyo qur-aan jada yar
adigu aad labadaada farood ku qabanayso ibraahim way isugu mid waa makhluuq kana waa makhluuq kana waa makhluuq ma عنده فرق idinka waxba idinka marrugo laakiin rabbigay nacam ilaahay muxuu ugu jawaabay markaa isagana jawaab cajiib la siiyey waa la iska daayey malaa'igtii iska noqotay ileen ilaahay wuxuu ku xidhay gargaarkooda shardi wuxuu uga dhigay inuu isagu codsi ka timaado codsi ma ka iman waayo haa dee iska taga ilaahay marka khaliiluraxmaan miyuu gubayaa xataa makhluuq kale waxaa leedahay ilaahay uma adeegsanin malaa'igtii ma odhanin ka qabta ama biyo meesha ku shuba abadan waa la iska daayey waa la tuuray waa la ganay intuu sii socday baa amar mubaashira toos baa allahu rabbulcaalamiina baa wuxuu la hadlay dabkii naartii baa lala hadlay waa markuu ilaahay leeyahay قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قرآن كودي كذب قالوا حرقوه بيقوله وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين يقول كاسي قال ثم أن قلنا رب العالمين محنري قلنا وحنري يا نار ناري كوني بردا قبوا أهو وسلاما نبت قليو على إبراهيم دوشيشا waxaa la yidhaha hadduusan allah odhan lahayn wasalaaman mindhaa qabowgayba u dili lahayd ba isla markii qabowgeedii baaba dili lahaa laakiin wuxuu ilaah ka daba keenay waa salaaman nabadgelyo calaa ibraahim suu u socday dabkii buu ku dhacay amar ilaahay bay haysataa bardan wasalaaman calaa ibraahim baa alla uga dhigay waxaa la yidhi xarkihii ku xidhxidhnaa bay googoysay ilaan xarag baa lagu soo xidhxidhaya kuwii gacmaha kaga xidhnaayo kuwii looha ka xidhnaa wixii oo dhan bay googoysay oy gubtay laakiin jirhkiisa tin kama gubin dharkiisana dun kama gubin dharkuu qabay xataa camay odhan amaruu qabaa min allah amrun min allahi linnaari mubaasharatan muntaha gaayat الtasliim lilaahi ibraahim baad ka dareemaysaa fi kulli makaan sidaas darteed baa ilaahay tafaasiil addacwa ila allah markii la weydiiyey baa la yidhi ibraahimow beri dambe ayaamaha adduunka ku soo maray maalmaheed ugu fiicnayd ama maalmaheed ugu jeceshahay ama waxay ugu wanaagsanaya ku soo maray maxay yihiin ama maalmaheed ugu wanaagsanaya ku soo maray haddii hadda lagu weydiiyo loo yidhaha maalintee kugu wanaagsanayd adduunka ku soo martay maxaad ku jawaabi lahayd maxaad odhan lahayd ya waxan baa iska sheegi lahayd ninba waxbaa soo maray ya nuur kabiir haddii la weydiiyo muxuu dhihinaa habeenkaa nuurka shiday baan ugu fiicnaa bu guursaday ka wada yani yaa ugu fiicnaa bu odhan laha ibraahim wuxuu yidhi baa la yidhi maalmihii aan dabka ku jiray ayaa adduunka iigu fiicnaa intii ii soo martay qur'aanku inta badan tafaasiil ma sii galgalo laakiin waxaa la sheegay 40 cisho inuu meesha ku jiray 40 cisho inuu dabka ku dhex jiray oo jannada looga keenay cunto iyo cabid iyo miro iyo iskaga dharagsanaa meesha waa maalmihii iigu wanaagsanaa buu yidhi wahaakada yafcalu allah biddaaci ila allah adigana saasaa laga rabaa ibraahim calayhi الsalaam qasaskiisa tacliim bay noo tahay muusa sidoo kale nebiyadii dhammaantood nebigeenni moxamed ah sala allahu alayh wasalam qur'aankan uu ilaahay uu ku soo dejinayay bitafriiq dacwadaa loogu talagalay